kulan diimeed ay ka qayb galeen dadweyne aad u fara badan oo Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka. Liibaan Xuseen ayaa faahfaahinta warkaasi inoo soo diray. magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa lagu qabtay ziyaarada caalimkii weynaa ee Sheikh Aways Ahmed Al-Qadiriyah iyadoo xirtii ka diin qaadatay iyo kuwii ka sii diin qaatayba ay isugu yimaadeen magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota iyadoo laga kala yimid guud ahaan gobolada dalka Mareykanka ilaa iyo Ingiriiska. madasha lagu qabtay ziyaarada Sheikh Aways Ahmed Al-Qadiriyah ayaa si weyn loo soo buuxiyay dhaafay waxaana ka soo qayb galay culimo waxgarad dhalinyaro iyo haweenka Soomaaliyeed. waxa laga sheekeeyay wanaagii sheekha iyadoo si weyn loogu xasuustay dariiqadii weyneyd ee lagu yiqiinay faafinta diinta islaamka isagoo gaarsiiyay dhammaan gobolada dalka Soomaaliya oo dhan iyo waliba wadamo kala duwan oo socdaal uu ku gaaray sheekha. haddaba ziyaaradani waxaa soo qaban qaabiyay xirta Mawlaca Biyooley iyo Maana Hamsada. culimadii ka soo qayb gashayna hadaladooduna waxaa ka mid ahaa sida tan. aniga horta waxaan ka imid wadanka Ingiriiska waxaan u imid ziyaaradan iyo maxabada sheekha. kulley waa ogahay in aan ka wada imaanay isteedyo kala duwan. waxaan kaloo aad ula yaabay qabowga ka jira maxay dhahaan Minnesota dadkii u yimid maxabada sheekhan Aways maxay la Sheikh Aways ummadda wuxuu ku miday jiray dariiqada sheekha maxay dhahaan iga horeeyay khayr Allah siiyo oo noo sheegay Soomaali ilaa hadda problemka ka taagan qabiil ilaa hadda dhibaatada ka taagan ee Soomaali isku dhileynaysa qabiil Sheikh Aways waqtigaas waa ka hortagay ummadda wuxuu ku miday dariiqada intaan hadda isfiirino isku qabiil manihi laakiin maxabada طريقة محمد الشيخ أويس أيام مش عن سكونيمت. ما أنتوا عارفين زيارة دي أبو بهنا مرنا الشيخ هنا الشيخ حاج أويس حاج محمد القادري. إلهي وحن كبرينا زيارة دي مقبول إنه إلهي كدقو أنا جنا إلهي إذن كيسة أنا جنا إنه إلهي خير بدن السيو. ليبان حسين تلفزيون كقرن كالصومالية Minneapolis.